xaalad aan caadi ahayn, isku dhexyaac qaab dhismeed, isku dhexyaac qaab shaqo ee nolosha noole kasta sida bini'aadamka, geedaha, fayrasyada, bakteeriyada iyo xayawaanada ku yimaada ayaa loogu yeeraa xanuun ama illness. Xanuun walba wuxuu leeyahay xilli ugu horreysay ee la arko iyo dhimashada uu sababo, kadibna magac loo baxshaa oo waa la diiwaan geliyaa. Xanuunkii u horreeyay ee la xiriira qaadashada cuntada oo la ogaado ayaa ahaa xanuunkii scurvy. Qarnigii 16aad, in ku dhow 10,000 oo ciidankii badda ee boqortooyadii Ingiriiska ayaa u dhintay xanuunkan sababo la xiriira inay waayeen khudrad. Xanuunkan waxaa sababa jirka oo ku yaraada maadada ascorbic acid ama vitamin C. Dhakhtar Scottish ahaa ee la oran jiray James Lind ayaa bilaabay inuu baaritaan ku sameeyo xanuunkan, uguna magac daray Treatise of the Scurvy maqaalkii Scurvy. Wuxuuna ogaaday in fruityada citrus sida liin dhanaanta, liin balbeelmada iyo geedka kale Yemenite citron ay daawo u yihiin xanuunkan. In badan oo askartii uu soo ritay xanuunkanna lagu daaweeyay. In badan oo liin ahna loo saaray doomihii iyo maraakiibtii ay wateen ciidankii badda.